Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaasheeda qiimaha iyo qayaalo meel kastoo joogtaan kusoo dhawaada shabakadda wararka ee Sayla 24. Maanta waxaan halkan idinka soo jeedinaynaa aan doonaa inaad idinkuna nala qaadataan naguna taageertaan codsi aan u dirayno jananka ciidanka bilayska ee Somaliland Mr. Dabagale aanu leenahay wariyaashani cadaalad darre u xidhan yihiin ee adiga cadaalad ha kaa helaan haddii qarankii kale cadaalad ka waayeen. labadan wariye mid waxaa laga dhex xiray suuqa dhexdiisa wariye Axmed oo ciidan isku sheegay inay yihiin sirdoon la baxeen iyagoon wax sababayna u samaynin, laakiin 30 casho kadib iyagoo dhacdadaasi dhacday ayay maanta waxa ka hadlay xildhibaano Somaliland in dhacdadani Somaliland ka jirto. wariyahan kalena waxa laga soo xiray gobolka Salal waxaanu u xidhan yahay isaguna xaqdarro. haddaba tali waxaan ku leenahay wariyaashani cadaalad ha helaan. ururkii Soljo wuxuu noqday meel masaariif lagu raadsado oo NGO isu bedelay aan ku hadli karin afka saxaafadda iyo afka xorriyatul qowlka midna. waxaanad ogaataan dhacdo kasta oo Somaliland gudaheeda ka dhacda oo xorriyatul qowlka saameyn ku leh inay aqoonsiga Somaliland iyo horumarkiisa saameyn ku yeelanayso. maalin kasta waxaa la xidhaa dad afkaartooda cabiraya oo lagu xidhaa hebel baad u gabayday, xamar baad tagtay, hadhowna waa la soo daayaa. waa macno darro kale aan is leenahay Somaliland aqoonsigeeda iyo horumarkeeda waxbay u dhimaysaa. in maalin kasta la yidhaahdo gal dacwadeed baa loo baadhayaa iyo rumaan baa lagu haynayaa waa xaqdarro kale oo la samaystay oo nidaamka Somaliland ka dhex jirta. waxaana ahayd ama in la xukumo ama in la sii daayo, labadaa midun bay ahayd. haddii dembi lagu helana in la xukumo, haddii aanay dembi lahayna in la sii daayo. laakiin in rumaan lagu haysto, xorriyaddoodii laga qaado, dadkoodii laga qariyo waa xorriyad darro kale oo la abuurtay. jeelashuna maaha inay noqdaan meel lagu xusuusto xorriyad xumada iyo xorriyad darrada.